iyadoo udub dhaxaadka aadamaha iyo halka ay ka asaasmaan uu yahay guurka ayaa waxaa jira siyaabo badan oo caalamka la iskaga guursado taasoo ku salaysan diimaha iyo dhaqamada ay dadkaasi aaminsan yihiin. Soomaalidu waxa ay ka mid tahay qoomiyadaha wadadega mandaqadani Geeska Afrika isla markaasina ka jira kuwooda ugu awooda badan, waxaanay lahaayeen dhaqamo soo jireen kuna caanbaxay ixtiraam, gobonimo heerkii ugu sarreeyay iyadoo waxyaabaha la isku qiimeyn jiray ay ka mid ahaayeen hantida, quruxda, deegaanka iyo wixii la halmaala. waxaanu ahaan jiray guur farxadeed isla markaasina lagu soo bandhigi jiray ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta qaybaheeda kala duwan, waxaana damaashaadka awgeed kor loo qridi jiray xabadaha, jawiga iyo dareenka bulshada oo ahaan jiray mid aan laga xiiso goyn. waxaana hadda isbedelay waxyaabihii la arki jiray oo dhan, taasi oo sababtay dhaqankii oo suulay, dhalintii oo danaynaysa duul shisheeye, walow ay yar tahay guurka xaragada waqtigani u dhaca kuna salaysan dhaqankii quruxda iyo qaayaha lahaa ay Soomaalidu caanka ku ah caadada iyo dhaqankana u lahayd, oo hadda isku bedelay nasiib ku dhufo oo ka dhaqaaqa amaba waan ka helay ana ka daran. haddaba arrintani oo Soomaalida ku abuurtay walwal baqdin fara badan iyo in qof kastaba uu ka boqo sidii uu xulan lahaa qofkii uu la wadaagi lahaa nolosha dhabta ah amaba uu naftiisa ku xasilin lahaa si uu la jaan qaado nolosha dhabta ah oo aanay ula soo gudboonaan jaah wareer kaga yimaada dhanka qoyska. saamaynta ay arrintani ku yeelatay ragga iyo haweenka Soomaalida ayaa noqotay mid raad reeb badan ku yeelata burburka noloshooda iyo in ay ku mashquulaan waxyaabo aan sal iyo raatoona lahayn. haddaba arrintani aniga u kuurgalaya waxaan xafiiskooda ku booqday ururka hidaha iyo dhaqanka Habar oo ka mid ah ururada ka aasaasan gobolkani Togdheer kuna howlan jiritaanka soo celinta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida si aan wax uga weydiiyo waxyaabahan saldhiga u ah in uu isbedel ku yimaado guurku waqtiga hore siduu ahaan jiray siduu haatan isku bedelay iyo waliba waxyaabaha kalifay in ay isbedel dhaba ku yimaado guurkii ay caadada iyo dhaqanka u lahaayeen Soomaalidu. waxaana halkaasi aan kula kulmay oo si meeqaam sareysay igu soo dhaweysay madaxa farsamada ururka hidaha iyo dhaqanka Habar Juno Colaad Farax, waxaanay ku dheeraatay sababaha keenay isbedelka dhabta ee ku yimi guurku siduu waqtigii hore ahaan jiray sidoo haatan isu bedelay, taasoo ay ku suuraysay in uu kow ka yahay aaladaha internetka, telefoonada oo waqtigaasi la isticmaali jirin. arrintani waxa ay ku cabirtay in lagaga hortagi karo sidii ay Soomaalidu dhaqankoodii quruxda badnaa ugu noqon lahaayeen loona soo celin lahaa guurkii qiimaha iyo qaayaha lahaa, ka ilaaliyo dhaqamada shisheeye lana mamnuuco aaladaha internetka iyo telefoonada, kaasoo sabab u noqday burburka xoogan ee ku yimi qoysaska Soomaalida. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay arrimo kale oo tiro badan waxa ay tiri guurka barigi hore hadlaa waa la yidin jiray konton halaad baa la siisan jiray 20 halaad baa la siisan jiray 40 halaad baa la siisan jiray walaalkeed hooyadeed ayaa laga aabaheed ayaa laga helisan jiray hadii laga helisto reerkoodii oo adeeynkeeda yahay ku maqsuuda oo noqodo xoolo ka qaatay oo lagu faraxsan yahay ayaa laga guursan jiray. marka ninka guursaday inta waxay ku ahaan jirtay qaali bay ku ahaan jirtay saxada xun ma qool jirin dimaashigeed qaali bay ku ahaan jirtay sadeed qaali bay ku ahaan jirtay waayo waynan leeysay xoolo sistay reerkooda qaali bay ku ahaan jirtay. adu waxa leedahay wuxuu ahaa intuu adu halo qaali ahaa inka waxa fududeeyay barigoona wanaaga waxa wadi jiray ragga, haddana fudeedkan waxa keenay raggii ayaa waxay noqdeen qayr mas'uul dumarku dhinac bay ka soo galayaan qayr mas'uulka waxa keenay qayb gabadhu ka tahay guriga gabadhu hore oo xiray weeye mar raba iyadu ma xumaan karto inantii yarad lagama bixiyo hadeer waxa lagu guursadaa wax la yiraahdo nasiib ayaa inanta lagu guursadaa inkuna waa nasiibiya meel walba kala hadlaa oo yiraahdaa marka teknolojiyadana adu wax qastaba jeeda ragii hore ragii hore la guursan jiray ka hadar nasiib bay ku guursadaan uu nasiibiya inaan ku inanta hadeer moolku ka garaaca halka iyagoo sarag baarka laga heshiiya hadda qaraar bay noqotay inantii laga bixiyay in la isku fariistay maaha in laga heshiiyay ma walaalkeeda qaraar ka tahay waa xala ka qaado ayay inantii oo dubaysa oo la wax nasiib ku guursaday uu soo yaray maaragtay aan waxba kala ceesay
هذا الحين كنا عيسى هذا اللي وحده كسو جلدي طبعا هاوس إلا كحسن أنت لو راك تجيل كم سنة كم سنة لو راك يقول أنت تدير قرار أيام من سوى شيء صوت ضيسا تقول أنا نقول بس تحبك كأنه أنت أي وريه جماعة وريه يقعي ugu dambeyntii waxyaabahan tirada badan la aynu soo xusnay waxa ay sabab u tahay ama ay calaamad u tahay burburka ku yimaada qoysas tiro badan oo Soomaaliya waa barwaaqo aadan Maxamed shabakada caalamiga Oodweyne News magaalada Burco.